kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo qaaday tallaabo geesinimo leh kadib markii uu amray in shaqada laga ceeriyo xogiyihii xafiiska ra'iisul wasaaraha oo awood u sheegtay saaxiibada ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Khayre xog iyo warbixin ku saabsan dhacdo lama filaan oo madaxtooyada Soomaaliya ka dhacday ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah shakhsi ay qaraabo dhow yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhow in loo magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka ku saabsan siyaasigan oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu isaga tagay ayaan idin soo gudbin doonaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya waxay fariin lama filaan u direen madaxweyne Farmaajo Kenya waxay diyaaradaha Soomaaliya u diiday dalkeeda ganacsatada waddankana waxay si weyn uga hor yimaadeen go'aankan waxaana ay xasuusiyeen in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dadka ugu nadaafadda badan maadaama ay yihiin dad muslimiin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareena uu wacdaro ka dhigay magaalada Muqdisho iskana bareejiyay madaxweyne Qorqor iyo xogta kulanka madasha iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle ay ku yeesheen magaalada caasimadda qodobadaas ayaynu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena waana subax Axada labada bisha 8 ee Agoosto sanadka 2020 waana maalintii saddexaad ee Ciidul Adha ciid wanaagsan daawade barnaamijkan wararka Soomaaliya oo mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaada dibadhiska dalka anagoo ka dheeraanayna wax waliba oo dib inoo celi kara waad ku mahadsantihiin inaad taana la faataan ee fadlan la faafiya wararka adigoo la wadaagaya saaxiibadiina kuna sheer gareynaya baraha bulshada warar la xiriira shakhsi ka mid ah xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre oo la filayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa inoo soo socda laakiin waxaynu ku bilaabi doonaa siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed ayaa u magacaabay Cabdiraxmaan Macaawiye Sheekh Ibraahim xilka xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo xilka ka qaaday Cabdirasaaq Xuseen Aadan oo loo yaqaano Cabdirasaaq Caato oo muddo kooban xilkaasi hayay shakhsiga xilka laga qaaday oo horey uga tirsanaa xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa la magacaabay toddobaad ka hor kadib markii xilkii laga tooray ra'iisul wasaarihii hore isla mar ahaantaana shaqadii laga bedelay xogayihiisii hase ahaatee xog lama filaan ayaa ka soo korortay sababta keentay xilka laga qaaday xogayaha oo ahaa shakhsiyaadka ugu dhow madaxweyne Farmaajo warar laga helay madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in sababaha xilka looga qaaday xogayihii ku-meel gaarka ee xafiiska ra'iisul wasaare Cabdirasaaq Caato ay la xiriirto xadgudub lagula kacay Yaxya Cali Hareeri oo ka mid ahaa raggii aadka ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shalay la isku dayay in gaari uu wato xoog lagula wareego Yaxya Cali Hareeri oo gaariga aan xabadaha kale la socday oo uu ku tagay hoyga ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre waxaana markii uu ka degay gudahana u galay hoyga ra'iisul wasaarihii hore waxaa markiiba gaariga hareereeyay ciidamo uu soo diray xogayaha ku-meel gaarka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdirasaaq Caato kaasoo darawalkii waday gaariga ku amray inuu ka dego kadibna way la wareegeen arrintan ayaa si weyn waxa uga carooday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo fariin ahaan ula tagay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana uu sheegeen inaanay u dulqaadan doonin habdhaqanka qalafsan ee lagula kacayo raggii ku dhawaa ra'iisul wasaarihii hore isla markaana xogayaha ku-meel gaarka Cabdirasaaq uu maalmahan beegsi iyo xadgudub ku hayay raggii la soo shaqeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre intaas kadib madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ayaa degdeg u amray in xilka laga qaado Cabdirasaaq Caato waxaana uu la xiriiray siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Guleed Qadar oo durbe xilka qaadis ee la socotay magacaabis soo saaray waxaana xilkaasi ku-meel gaar ah loogu magacaabay Cabdiraxmaan Macaawiye oo horey u ahaa ku-xigeenka xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa xilliyada qaar ka dhexdhaca hay'adaha dowladda laakiin dad badan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda oo uu ku ciqaabay xogayihii dhibaatada geystay qaar ka mid ah raggii sida weyn ugu dhawaa Xasan Cali Khayre ayaa qaarkood shaqada ka tagay sababo loo maleynayo inay ka mid tahay dhacdadii shalay ka dhacday xafiiskiisa oo kale dhinaca kalena madaxweynaha dalka ayaa weli waxa wadaa kulamo uu ku soo xulanayo ra'iisul wasaarihii dalka waxaana uu kulamo aan caadi ahayn la yeeshay xubno si weyn loogu saadaalinayo xilka saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn u soo shaac baxaya siyaasi ka tirsan xukuumadda hadda xilka sii haysa ee uu ka tagay Xasan Cali Khayre wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha injineer Cabdulaahi Cali Xasan ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo taas ayaana keentay in haatan loo maleynayo in shakhsigan uu ku dhow yahay xilka madaxweynaha iyo wasiirka dhowr mar ayay kulamo yeesheen kadib markii uu dalbaday xilka ra'iisul wasaaraha xubin ku dhow xafiiska wasiirka ayaa sidaa inoo xaqiijisay Mr. Wasiir Xasan ayaa la rumaysan yahay inuu xiriir dhow la leeyahay xubnaha mucaaradka waxaana uu ka soo jeedaa gobolka Banaadir halka ay isku dhow yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isku beel ka soo wada jeedaan hase ahaatee kulankii dhex maray isaga iyo madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqday isku soo dhawaashiyo iyo inuu madaxweynuhu u magacaabi doono xilkan maadaama
uu yahay shakhsi leh awood badan islamarkaana culeysyada haatan saaran madaxtooyada Soomaaliya kala yaray karaya. wararka qaar ayaa sheegaya in kanistiisa xafiiska labaad ee ugu sarreeya dalka ee ra'iisul wasaaraha ay ka shaqeynayaan xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran oo ay isku dhow yihiin siyahayaha wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan, balse waxaa jagadaasi kula loolamaya Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo garab ka haysta xildhibaanada baarlamaanka iyo dowladda waddanka Mareykanka uu sharciga labaad ka haysto. madaxweynaha Galmudug ayaa sidoo kale siyaasigan oo soo noqday musharaxa xilka madaxweynaha doorashadii la soo dhaafay si weyn u garab taagan. waxaa horey u jiray warar ay heshay warqaad kaas oo sheegaya in agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya uu xilkaas ku dhawaa, laakiin walaaca ka yimid beesha caalamka ayaa qasabtay in madaxweynaha uu go'aankiisa bedelo. sidoo kale waxaa jira dhowr siyaasi oo magacyadooda ay soo gaareen kuwaas oo xafiiska madaxweynaha yaala isla markaana doonaya xilka ra'iisul wasaaraha, waxaana ku jira Yuusuf Garaad Cumar iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ahna danjirihii hore ee Soomaaliya u joogay wadamada Djibouti iyo sidoo kale waddanka Ethiopia. si kastaba madaxweyne Farmaajo ayaa kulamo aan loo kala harin la qaatay madaxda Galmudug iyo Hiirshabelle kuwaas oo xusulduub ugu jira in shakhsi deegaanadeeda ka soo jeeda xilka loo magacaabo. sidaad wararkeena hore ku daawateen, xubnaha beesha caalamka ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inay aragti ku lahaadaan ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabayo si lamid ah sidii horey ugu sameeyeen dowladihii dalka soo maray, laakiin fila Soomaaliya ayaa arrintaa ku gacseertay. baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan xilkii ugu tooray Xasan Cali Kheyre kadib kala fadhi lama filaan oo ay yeesheen, laakiin Kheyre oo muuqaal soo duubay ayaa sheegay inuu isaga is casilay. haddaba wararka ku soo kordha soo magacaabida xilka ra'iisul wasaaraha wararkeena daba ayaan idigu soo gudbin doonaa insha Allah. iminkana aan fiirino madasha xisbiyada qaran ee ay hogaamiyaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga digay inuu wareegto ka soo saaro shanta xubnood ee golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa ee magacowday 3 bisha Julaay. qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada ayaa lagu faahfaahiyay sharci darrada talaabooyinka ay qaaday xukuumadda xilgaarsiinta oo ay ka mid yihiin inay magacowdo guddiyo masiiriya oo horey looga gaabiyay sida xubno ka mid ah golaha adeega garsoorka iyo sidoo kale hay'adda batroolka Soomaaliyeed. waxaan ugu digaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuusan wareegto ku soo saarin xubnaha shanta ah ee ka tirsan golaha adeega garsoorka inta la waafajinayo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ayaa lagu yiri qoraalka madasha. dhinaca kale, madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa soo dhaweeyay talaabada ay qaaday dowladda federaalka ay markaasi ku magacowday guddiga farsamada ee ka soo shaqeynaya nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa, kaas oo ahaa qodob ka mid ah qodobadii ay ku heshiiyeen dowladda iyo maamul goboleedyada kadib shirki ay ku yeesheen Dhuusamareeb. hore ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxaa loogu cambaareeyay talaabada ay ku magacowday guddiga garsoorka dalka, taas oo lagu sheegay inaan hab sharciya loo marin. warqaha TV ayaa weli nagala socotaan, wararkii Soomaaliya ayaa daawanaysaan. iminkana madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa dad badan ka yaabsaday kadib markii si aan hore loo arag loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. wafdi uu horkacaya madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagareen ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadweyne kale. xubnaha soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxaa ka mid ah wasiiro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin caan ah, laakiin kuma uusan jirin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. waxaa jira warar sheegaya inuu khilaaf xooggan ka dhaxeeyo Laftagareen iyo sidoo kale gudoomiye Mursal, taasna ay keentay in gudoomiyaha uu ka baaqsado soo dhaweynta. laakiin sida weyn ee loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho malaha waxay jawaab u ahayd madaxweyne Qoorqoor oo isna si aan horey loogu arag toddobaadka loogu soo dhaweeyay magaalada caasimadda. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin doorashada dalka ka dhici doonta. magaalada Muqdisho ayaa waxaa horey ugu sugnaa madaxweynayaasha Galmudug iyo Hiirshabelle iyagoo kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. wararka ku soo kordhay dib ayaan idinla socodsiin doonaa. iminkana madaxweynaha maamulka Hiirshabelle ayaa kulamo caadi ahayn la qaatay madaxweynayaashii hore ee dalka. waxaa xalay magaalada Muqdisho shir gaar ah ku yeeshay madaxweynayaashii hore Cali Mahdi Maxamed, Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo xubno kale. kulankan ay yeesheen madaxdii hore ee dalka iyo madaxweynaha maamulka Hiirshabelle ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan isbedelka ku dhacay xukuumadda. waxaa sidoo kale kulankan oo ka dhacay Muqdisho looga hadlay shirka beesha madowlad ee la filayo in maalinimada Isniinta uu ka furmo magaalada Muqdisho. shirkan ayaa waxaa ka qayb geli doona madax kala duwan, siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda beelaha Mandullood. madaxweynaha maamulka Hiirshabelle oo u muuqda mid xilligan ku kacsan siyaasadda madaxtooyada Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wada kulamo uu la qaadanayo madax ka tirsan dowladda iyo siyaasiyiin mucaarada. madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa sidoo kale Muqdisho ka wada kulamo xoogan
iyagoo dhawaan la kulmay madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Si kastaba waxaa lagu jiraa xaalad kala guura, siyaasiyiinta ayaana isha ku wada haya in ay samaystaan isbahaysiyo si ay doorashada soo socda uga soo baxaan. ugu dambeyntiina Kenya ayaa si weyn uga carootay go'aanka ay dowladda federaalka Soomaaliya ku diiday in qaadka loo dhoofiyo Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka xilli la fasaxay diyaaradaha caalamiga. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in 3 bisha wixii ka dambeeya diyaaradaha caalamiga ay ka soo degi karaan Muqdisho kadib tallaabooyinkii laga qaaday xayiraadda oo uu keenay cudurka safmarka ee coronavirus. Xayiraadda la qafiifiyay ma qusaynayso duulimaadyada jaadka mirowga maadaama ogeysiis cireed oo kale laga soo saari doono arrintan, ayaa ay sheegtay hay-adda duulista rayidka ee dowladda Soomaaliya. Arrintan ayaa waxaa si weyn uga carooday ganacsatada qaadka waddanka Kenya, kuwaasoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay bartilmaameedsanayso qaadka dalkooda. hase ahaatee Kenya ayaanan Soomaaliya ku dirin dalalka ay u fasaxday inay dalkaasi booqan karaan. Mareykanka iyo dalal kale oo Yurub ayaana sidoo kale booqan karin Kenya, halka Shiinaha oo halkii uu ka soo bilowday cudurkan ay dalkaasi Kenya tagi karaan. Soomaaliya oo ganacsi baaxad weyn leh ee Kenya la leh ayaanan tagi karin dalkaas, waana sababta ay ganacsatada qaadka miraaga waddankaasi Kenya ay si weyn arrintan uga caroodeen. Waxaan ka dalbanaynaa dowladdeena inay si degdeg uga fiirsato sida ay duulimaadada Soomaaliya u imaan lahaayeen Kenya, ayaa lagu yiri farriin ay ganacsatadan barahooda bulshada ku baahiyeen. Waxay ganacsatada Kenya sheegeen in Soomaaliya ka helaan lacag aad u fara badan, laakiin arrinta yaab kale ee ganacsatada ugeysiyeen dowladooda Kenya ayaa ah in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa Muslima isla markaana nadiif ah, maadaama maalintii ay weyse qaataan isla marhaatan ay salaada dukadaan. Salaada ayay weyse qaataan oo gacmahooda si joogto ah ay u dhaqaan marka wax khatar ay noogama imaanayso dadka inooga soo safraya Soomaaliya, ayay sheegeen ganacsatadan oo u doodaya qaadkooda. Kenya ayaa malaayiin dollar ka sameyn jirtay qaadka ay geyso Soomaaliya, laakiin xukuumadda Muqdisho ayaa qaadkaas hor istaagtay. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii wararka Soomaaliya oo aad ka daawanaysaan Warqad TV. barnaamijka lamid insha Allah ay ku kulmi doonaan. waxaan idinka tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.